بسم الله الرحمن الرحيم. halka waxa ka hadlay maanta waa Omar Awaleh Ibrahim afayeenkii qurba joogta meesha ee North America. saddex arrimood ayaan maanta ka hadlaynaa. waxa weeyaan kow waa Djibouti qalalaasa ka taagan iyo beesha ama Djibouti oo dhan qabiilku toona baa noqday caaqiladii iyo suldaanadii odayadii beesha Djibouti shaqadoodii may gabeen mise dawladda cadaadis ku haysa. talabaad beesha Somaliland oqaashoodii suldaanadoodii khilaafkii ka dhacay dawladda Somaliland guusha iyo sharafta ay ka soo hooyeen hambalyo. arrinta saddexaad dagaalka ka socda Somaliland jubbooyinka dawladda Soomaaliya ee jubbooyinka ee qabiilka hawiye iyo biyamaal la isku leynayo. beesha biyamaal waa beel dir ah. haddaan nahay Soomaalida galbeedka degan Somaliland Djibouti Ethiopia siiba Ciise Gadabuursi Saaq intuba way garab joogtaa biyamaal qabiil haddii dadka lagu leynayo siyaasad ahayn oo lagu dilayo dulun ma ogolaanayno. haddaan nahay saddexdaa beelood ee galbeedka arrintaa waan cambaaraynaynaa. waana qalab inaad dawladda Soomaaliya annagoo haddaan nahay reer Djibouti ciidankii Soomaaliya uu garabni siinayo oo ni garab taagan yahay inaad dad Soomaaliyeed reernimo lagu xasuuqo sanadka maanta 2014 maanta qabiil lagu dila dadka waan cambaaraynaynaa. dawladda Soomaaliyana waan cambaaraynaynaa. aad iyo aad baan arrinta dhimashada uga xunay anigoo ku hadlaya afkii beelaha Soomaaliya ee galbeedka Ethiopia iyo Djibouti. waxaan leenahay arrintaas si degdeg ah dawladda Soomaaliya boolijeysna ka bixiso magna dadka dhintay ha siiso dhulkoodana nabadgelyaha ku siiso. way ahayn dagaal qabiil daarood iyo hawiya jiray dir iyo daarood iyo hawiya loo kala bixi arrintaan inaga ka mas'uula. waxaan u noqonayaa Djibouti waxaan farayaa oqaashi Djibouti qabiilkay dooni baan noqdaan sharaftiini way dhimatay inaguna waxa tiin lama yaqaan. waxa la inaga rabaa foolxumada ka taagan Djibouti siyaasadda ka taagan Djibouti waa inaad sidaa oqaasha Somaliland u tagtaan xisbiyada siyaasadda isku haysta wargo'aan haddaan gaadhno ma ogolaanaysa inaad tidhaahdiin kiini diidana adeecadaha adduunka ka sheegtiin oo xal ka gaadhiin siyaasadda Soomaaliya siyaasadda Djibouti ee madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo ku fashilmay oo ilaa maanta kala dhex dhigay qabiil ay laba isku haysan inaad xal ka gaadhiin ayaan doonaynaa. odayaashii Djibouti oo sharaftiini way dhimatay soo celiya sharaftiini dhexdii xambulitaga go'aan gaadha labada xisbina heshiisiya. haddii lini diido adduunka u sheega sharaf iyo maamuus bay weligeen ba lahayn. hambalyada halkaa waa ku dhaaf. Somaliland hambalyaan siinaya khilaafkii madaxweyne Siraanya iyo Musabix waxaa soo afjaray oqaasha iyo suldaanada Somaliland hambalyaan siinaya iyaguna kuwa aqbalay oo dawladdana hambalyaan siinaya. waxaan ku soo koobay hadalkayga war ku dayda maanta sharaf iyo maamuusta ay oqaasha Somaliland leedahay ku dayda. waxa weeyaan aad iyo aad baan ni hambalina adeerayada halkaa guusha iyo nabadda ka soo hoy. waxaan ku darayaa mar labaad oqaasha Somaliland hadday Isaaq yihiin hadday Samaro yihiin hadday Ciise yihiin iyo haddii ay yihiin dhulmaanti iyo maaragtay reerka kale warsangariba waxaa leenahay isku taga xuduudihii 60 shantii beelood ee Somaliland beesha Ciise waxay tabanaysaa dulun wixii kale kula jirana dulunka alla joojo. xuduudkii 60 baarlamaanka Soomaaliya hala mariyo beelba beel inay dhulkeega ku xadgudbin. waad ogtiin 22 sano beel baa beesha Ciise ku soo duulaysa dawladduna ay garab siinaysay. arrintaa waan ka soo horjeednaa haddaan nahay beesha Ciise qurba joogta
iyo kuwa kale galbeedkaba waxaa hadda noo jooga oon dirnay oqaal Soomaaliyeed oo la kulmay dawladda Somaliland oo degan hadda Hargeysa muddo bilay joogaan 2 bilood 3 biloodna elgaal iyo waxay soo joogeen karuuriyo laanta marada waana ka aragteen adeecadaha waxaan ka codsanaynaa sharaf iyo maamuusna u sheegaynaa odayada beesha ayse xaqoogii ayay ka doonayaan baarlamaanka Somaliland gurtida Somaliland dawladda Somaliland beesha degmadeeda sayla xuduud bay lahayd Hargeysana xuduud bay lahayd Bakina xuduud bay lahayd xuduudkii 60kii ee dawladihii Ingiriiska ka tageen ayaan doonaynaa inay odayadaas loo xaqiijo iyagoo Hargeysa ka soo bixina loo mariyo baarlamaanka oo la yiraahdo warxadkii halka beelba beel kuma xadgudbi karto wabillahi tawfiiq waxaan ka codsanaynaa mar labaad mar saddexaad inay dawladda Soomaaliya ka joojiso duunka lagu samaynayo reerka biyamaal dawladda Djiboutina waa inay ka noqoto waxaan maanta foolxumada Djibouti ka dhacaysa ee dilba qaraxya bilaameen si ayna dib dambe qaraxya ugu dhicin nolosha dadkuna u baabeen waa meel kulul waa meel baaba madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waad bugtaabaan maqalay haddii ilaahay ha ku caafiyo laakiin marun baad dhiman intaad nooshahay sharaf xumo dhulkaa kaga tegin sharaf kaga tag dadkii kula noolaa ee waddankaad u talinaysay dulun iyo xaqdarray tirsanaya carruurtii dumarkii baa la dulmaya raggii iyo dadkii kalaa la dulmaya shaqadii dadka xaq u lahayn baa lagu dulmaya waa ka joogso si xun baad u dhiman haddaad dadkaaga ka joogsan weydo ilaahay idankiisa allah ku caafiya laakiin xaqiladaad gali oo qubadaad gali carruurtaaday dili qarniga soo socda adiga iska daa carruurtaaday dili waxaa li 40 sano qofka dulum gala 40 sano ilmihiis kama hadho carruurtooda saddexaad ayuu dulumkaay dili ka joogsaan ku leenahay ilaahayna xaqa ha ku tus dadkaagana ixtiraam waddanka ixtiraam nabadgelyada ku soo joogso wixii dulunana xaq daradana soo daa culummada dadka xidhan soo daa aabbaha may dilin dadka aad xoogga u sheeganayso waa ilaahay ka baq wabilaahi tawfiiq halkaa baan kaaga baxay odayada Somalilandna sharaf iyo maamuus bay leeyihin siday halkaa uga guulaysteen dulunkaa kalena ee xuduudihii 60kiina adeerayaal soo dhameeya sharaf iyo maamuusna waa leedihin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa halkaa ka hadlaya Omar Awaleh Ibrahim oo afhayeenka qurba joogta ee ku hadlaya waxaanan doonaynaa wanaagii dalkayaga dadkayaga baan doonaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu